gudoomiyaha guddiga ay ku mideysan yihiin manhajka madaarista islaamiga ee dalka Sheekh Xasan Sugo oo ay garab fadhiyeen qaar ka mid ah hoggaanka hay'adda horumarinta manhajka islaamiga ee waxbarashada ee dalka ayaa waxa uu magaalada Mombasa uga dhawaaqay natiijada imtixaanka isagoo ku dhawaaqay natiijadaasi ayaa hadaladiisa waxa ka mid ahaa waxaan u kulannay si aan uga qayb galno natiijada imtixaanka oo madaarista islaamiga ah wadanka natiijadooda oo si rasmi aan u ilaaminayn iskuulada ka qayb galan imtixaanka sanadka imtixaanka u fariisteen waa 18 iskuul ardaydana waxay ahaayeen 548 ardayga ugu horeeyay imtixaanka ardaydaas 548 ardayga ugu horeeyay waxay ahayd gabar lagu magacaabo Fatma Ahmed waxayna dhigataa iskuulka oo Sheekh Zayd waxay heshay 583 maadooyinka imtixaankana waxay ahaayeen 6 maado marka 583 out of 600 ardayga ku xigay wuxuu ahaa Cabdulrahman Cabdullaahi Nairobi Muslim ardayga saddexaadna wuxuu ahaa